sanadku wuxuu ahaa 1986 kacaankii Oktoobar oo waqtiga ay mucaaradka ku hayeen oo la dagaal imid siyaasadeedba ayaa waxa uu dareemay in islaamiyiintu ay si muuqato oo xawli ah u xoogeysanayaan isla markaana abaabul ugu jiraan sida ay u kasban lahaayeen bulshada inteeda badan. intaasi kadib waxa uu kacaankii qaaday talaabo adag oo u yara eg ama u yara dhoweyd qorshihii 1975 kolkii la sameeyay xeerkii qoyska isla markaana lagu toogtay 10 wadaad. waxaa la qabqabtay oo si baahsan loo xirxiray culamaa'udiin iyo hogaamiyaal ka tirsanaa ururkii al-Ittixaad al-Islaam iyo islaamiyiin kaleba. xabsiga ayaa la dhigay in badan, kuwa kalena dalka ayay ka baxsadeen. haddaba xubnihii baxsada waxaa ka mid ahaa hogaamiyihii al-Ittixaad ee xilligaasi Sheekh Cali Warsame oo iminka ku nool Burco. Sheekh Cali gurigii uu ka deganaa Burco ayaa waxa u dhacay ciidankii dowladda kacaanka iyaga oo doonayay inay isaga xabsiga u taxaabaan. laakiin ma dhicin oo Sheekh Cali Warsame wuxuu xilligaa joogay Hargeysa loona sheegay wixii dhacay isaga oo markiiba go'aan ku gaaray inuu dalka isaga baxsado. haddaba waxaan xiriir qadka taleefanka kula sameynay Sheekh Cali Warsame oo inoo sharaxaya wixii dhacay. ragga markii way waayeen aniga guriga anigoo Hargeysa qabtay habeenkii u soo dhaceen. sax doorashooyinka waqtiga ku talagalay habeenkii guriga u soo dhacay anigoo Hargeysa soo dhacay qabtay daan waxba ogay. haadkii bay ka haysteen oo yeeninkii xaguu maray. adigu raggii maaragtay markii dambe uun 10 nin oo aan anigu ku jiro oo waxana ay joogeen oo qabqabteen habeenkaa qabqabteen iyagoo ay heleen waxana ka baxsadeen oo aniguna aan ku jiro dil baa lagu xukumay. sanadkii 1987 ayaa la hor keenay maxkamadda badbaadada dalka rag wadaadda ahaa oo ku jiray xabsiyada dalka, waxaana qayb ka mid ahaa raggaasi lagu xukumay dil. qaar kalena waxaa lagu xukumay muddo 20 sano ku dhow iyadoo loo cuskanayay ka hor imaanshaha shuruucda Soomaaliya ka jirtay oo uu dejiyay kacaankii Oktoobar. haddaba Sheekh Cali kolkii uu dalka ka baxsaday waxa uu gaaray dalka Jabuuti isaga oo si dhuumaalaysi ah kaga baxsaday xadka Soomaaliya iyo Jabuuti. muddo yar kadibna wuxuu safaaraddii Sacuudiga ee Jabuuti ku tiil ka codsaday dalku galka boqortooyada Sacuudiga. maalmo dhowr ah kadibna waxaa u soo baxday fiisihii uu ku tagi lahaa dalkaasi. wuxuu markiiba dalkaasi Jabuuti ka raacay diyaarad isaga oo ka baxsanayay sirdoonkii dowladdii kacaanka. muddo yar kadib markii uu ku sugnaa Sacuudiga ayuu wuxuu u sii gudbay dalkaasi isu taga Imaaraadka Carabta gaar ahaan Abu Dhabi. markii uu halkaas gaarayna ayaa loo sheegay in dowladdii Maxamed Siyaad Barre ku xukuntay dil toogasho ah isaga iyo rag kale. Sheekh Cali Warsame iyo rag kale culimo ahaa ayaa waxay markiiba u dhaqaaqeen sidii dowladda kacaanka loogu hor istaagi lahaa ama loogu badbaadin lahaa ragga dilka ay ku xukuntay. waxayna u tageen nin dowladdii Sacuudiga u qaabilsanaa arrimaha dacwada ama diinta oo xilligaasi joogay isu taga Imaaraadka Carabta. ninkaasi oo Sheekh Cali Warsame inoogu sheegay magaciisa Sheekh Muslix. waxaa dhacday arrintaas dhacday in ragga intaas oo dil lagu xukumay waxaanu ninka u sheegnay isagana wuxuu u sheegay sheekh dhintay Allahu naxariisto Sheekh Ibn Abbas la oran jiray ayuu markiiba u sheegay. isagiina wuxuu u sheegay ninkii odaygii Malik Abdallah oo markaa weli ahliga ahaa. Sheekh Cali Warsame iyo raggii la socday waxay Sheekh Muslix ka codsadeen in dowladda Sacuudiga ay cadaadis ku saarto Siyaad Barre bal inuu raggaasi cafis u fidiyo ama ugu yaraan uu dilka toogashada ka dhaafo. waxay sidaasi oo kale Sheekh Muslix u sheegeen ragga uu Maxamed Siyaad Barre toogashada ku xukumay inay ku jiraan rag daaciye ah oo laga diray Sacuudiga si ay diinta u gaarsiyaan Soomaaliya. haddaba wixii markaasi ka dambeeyay Sheekh Muslix wuxuu la xiriiray muftigii weynaa ee dalkaasi Sacuudiga Sheekh Cabdulcasiis bin Baas isagoo u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu toogan doono rag culimo ah maalmaha soo socda. welibana Sheekh Muslix wuxuu bin Baas u raaciyay in raggaasi qaar uu garanayo isaga bin Baas ahaan. talo faraha ayay ka baxday bin Baas isagiina halkii ayuu ku ooyey oo xaaladdii waa ay sii adkaatay. saacaddu waxay ahayd 2:00 xilliga Sacuudiga. bin Baas ayaa isagiina wuxuu taleefan u sii diray dhaxal sugihii Sacuudiga Cabdallah bin Cabdilcasiis oo kolkii dambe boqor ka noqday dalkaasi. boqor Cabdallah ayaa taleefankii loo geeyey isaga oo la yaaban waxa xilligan bin Baas wada ayuu wuxuu weydiiyey sheekh maxaa dhacay oo aad caawa xilligan ii soo wacday.
bin baas wuxuu cabdalla u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre uu doonayo inuu toogto rag culimo ah oo dalkaasi Sacuudiga arday ka ahaa, welibana qaar ka mid ah raggaasi uu isaga u diray Soomaaliya si ay diinta u gaarsiiyaan. Boqor Cabdalla ayaa bin baas u sheegay waa sida la yiri Maxamed Siyaad waa uu qasaarayaa haddii uu raggaasi toogto, wuxuuna durbaba Boqor Cabdalla la soo xiriiray madaxtooyada Soomaaliya isaga oo ka codsaday Maxamed Siyaad inuu saamaxo ragga uu doonayo inuu toogto. laakiin Maxamed Siyaad oo isku dayay in Boqor Cabdalla uu isaga dhigo qof aan waxba kala socon ragga xabsiyada ka buuxa. haddaba si aan arrintaasi wax badan ugu ogaado ayaan waxaa la xiriiray mid ka mid ah raggii dilka ku xukunaa, waa Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo iminka ku sugan Muqdisho, wuxuuna yiri rag aan saaxiibana oo dibadaha joogay yaa waxay u tageen sheekhii muftigii Sacuudiga Ibn Baazna waliyul ahdigii Sacuudiga Cabdalla oo kolkaa waliyul ahdi malik wuxuu ahaa Fahd Cabdalla u tageen. Cabdalla marka wuxuu la soo hadlay Maxamed Siyaad. intaanan sheekada u sii dhaadhicin waxaa jirta xog kale oo aan ka helay baraha bulshada, midaasi oo sheegaysa in 4 nin oo Soomaali ah ay u tageen sheekh lagu magacaabi jiray Sheekh Falaax bin Ismaaciil al-Mudakar una dhashay dalkaasi Kuwait, iyagoo u sheegay sheekhaasi in Maxamed Siyaad uu toogan doono maalinta berita ah rag saaxiibadood ah. sheekhii iyo 4 nin ee Soomaaliyeed waxay kolkii dambe u tageen iyaga oo murugaysan sheekh kaloo lagu magacaabi jiray Sheekh Abubakar al-Jazaa'iri, waxayna u sheegeen dhibaatada jirta. haddaba labada sheeko oo isku dhow waxay ku soo biyo shubanaysaa in bin baas lala hadlay, isagayna uu taleefanka ka sii wacay dhaxal sugihii dalkaasi, Boqor Cabdallana uu la soo xiriiray Siyaad Barre. haddaan u soo laabano wadahadalladii u socday Siyaad Barre iyo dhaxal sugihii Sacuudiga, Siyaad Barre wuxuu Cabdalla u sheegay inuusan warba ka hayn wadaadada la tooganayo, wuxuuna Cabdalla u sheegay bal inuu berito ku soo warceliyo si uu arrintaasi u soo baaro. waa kan Sheekh Nuur Baaruud mar kale ha inoogu sheekeeyo. Maxamed Siyaad wuxuu yiri ma maqal warwaad maqashay waxa baasida uu yiri bal waa raadin habeen dambe ku soo celi uu yiri habeenka dambe wuxuu yiri waxa weeye niman xun oo Shiico oo Iran ay soo dirtay, marka wuxuu yiri waa rabbi jaamacadaha ka baxaba ka buuxay Iran ma soo direen nimanka faraha ka qaato. Maxamed Siyaad iyo dhaxal sugihii Sacuudiga Cabdalla waxay ku heshiyeen in la saamaxo raggaasi, inkastoo warar hoose ay sheegayaan in Maxamed Siyaad loo ballan qaaday lacag kaash ah. maxaa yeelay Maxamed Siyaad dhawaanahaasi ayaa lagu soo dabaybay dalkaasi Sacuudiga kolkii uu shil gaari ku galay agagaarka Lafoole. haddaba xubnihii dilka waqtigaasi lagu xukumay laakiin ka badbaaday waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdicasiis Faarax, waxaa la sheegay inuu geeriyooday, Sheekh Cali Warsame oo baxsad ahaa, Sheekh Xasan Daahir Aweys, Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, Aweys Maxamed Ibraahim, Sheekh Xaashi Colhaye, Maxamed Xasan Faarax, Maxamed Cusmaan Siidi, Yuusuf Cabdi iyo Shaafici Axmed. bishii May 1987 ayay xukuumadda jebisay xukunkii dilka ahaa, si shuruud la'aan ah ayaa lagu sii daayay dhammaan raggii dilka ku xukunaa. waxaa kaloo dalka dib ugu soo noqday xubnihii Islaamiyiinta ahaa ee dibadda u baxsaday, iyagoo markiiba bilaabay inay dib u soo cusboonaysiiyaan hoggaankii al-Itixaad. waxaa hoggaanka cusbaa mar kale madax looga dhigay Sheekh Cali Warsame, iyadoo ku-xigeenka loo doortay Sheekh Xasan Daahir Aweys, waxaana la sheegaa inay kulankooda ku go'aansadeen inay ku dhagaan jihaadka si ay u fuliyaan ujeedkii ururkii al-Itixaad. haddaba waqtiyadaasi wixii ka dambaysay dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxay ku tilaabsatay inay iska hor keento raggii dhallinyarada u badnaa ee jaamacadaha Sacuudiga ka soo aflaxay iyo culamaa u diinkii dariiqooyinka, waxayna u kala baxeen gardheere iyo tusbax dheere. wadaadadii jaamacadaha Sacuudiga ka soo baxay ee dalka dib ugu soo laabtay waxaa lagu suntay bidco ummadda u horseedaysa baadinimo, kuwaasi oo afkaartooda lid ay ku tahay asluubta Islaamka iyo ixtiraamka awliyada oo gobollada qaar si daran loogu karaameeyo. dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxay gacansaar xooggan la yeelatay wadaadadii dariiqooyinka suufiyada, waxayna dowladda u igmatay wadaadadaasi in ay dadka ku booriyaan isla markaana ay xakameeyaan afkaarta kooxdaasi loo bixiyey gardheerayaasha.
markaasi kadib waxaa iska hor yimid labadii garab ee loo kala bixiyey tusbax dheere iyo gardheere. waxaa ka dhex dilaacay loolan xagga awoodda ah iyo in bulshada caamada u badan la kala jiito. hase ahaatee salafiyiinta Sacuudiga ka timid waxay ku guulaysteen inay hantaan dhalinyarada aqoonta leh ee dhigta dugsiyada sare iyo jaamacadda ummadda. waxaana dhici jirta mararka qaar inuu dagaal xoogan ku dhex mari jiray magaalooyinka waaweyn, is-ulayn, is-caayid iyo is-handadiid oo qolaba qolada kale ay fikirkeeda ku sheegto wax bidca ah.